بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan ummadda Soomaaliyeed gudaha iyo dibadba waan salaamayaa goor dhaweyto ayaan waxaan daawaday maamul goboleedka Hargeysa ninka markaan hormoodka ka ah Muuse Biixi runtii in waxa xaqa alla sheego ayaa horta waajib ah waxa weeye xushmad ahaan anoo qof walbaba inaan xushmadeeyo jecel dariiqa iyo nidaamka hadda waqooyigu ku socdo oo Hargeysa maanta madax aad uga tahay siday wax u dhaceen nin walbaba waa la socdaa mana rabo inaan carabka ku sii adkeeyo waxaan ku leeyahay anoo jecel inaan wax dhibaato ah ummadda Soomaaliyeed wixii hore ugu dhacay maahane wax kale aysan ku dhicin in aad colaadda iyo dagaalka aad joojiso walowba nin askariya aad tahay oo askarigu waxaan dagaal ahayn uusan aqoon iyo garasho u lahayn waxaan kuu sheegayaa waxaad ummadda kala dirirtaa Soomaaliyeed ee kugu dhex nool ee aad isla joogtaan dhibaatooyinka sicir bararka dhibaatooyinka caburiska dhibaatooyinka kadeedka halka daawooyinka ka suubi aniga waa ku dhimrinayaa nin Soomaaliyeed baa tahay dhankaas hawsha ka bilow dadka kula degan hareeraha ka joogana waxa weeye nin walbaba si sharaf leh ula dhaqan waayo qabiil kama qiimo badna waxa weeye dadka kula jooga qolo kastaba ha ka yimaadeene ee aan u dhalan reer Hargeysa iyo reer Berbera iyo reer Burca waxa weeye arrin hal bacaadka lagu lisay ah nidna annagana nama metelo dadka kale ee dariska ana ma metelo aniga oo Axmed Nuur Maxamed ah ayaa saa kuugu cadaynaya horena dad badan ayaa sidaas u sheegay waxaan kuu sheegayaa Ilaahay ku abuurtay awoodiisa uu dhulka ku abuuray tixgeli qolo walba meel bay degan tahay isticmaar baa wax soo kala jeexay isticmaar baa wax soo kala waxeeyay sidaana la yeelay dhulka Ilaahay baa iska leh nin walbana meel buu degan yahay waxaan kula talinayaa markaan adiga waa ku siiyay taladii fiicnayd oo aan ku iri dadkaaga wanaaji oo nabad iyo fiicnaan rafaadkii iyo dhibaatadii la soo maray dadkaaga meel fiican marsi ayaan kugula taliyay hadda toos waxaan ula hadlayaa dhammaan dadka Berbera degan dhammaan dadka degan Hargeysa dhammaan dadka degan Burco iyo agagaaraheeda miyiga wax allaale waxa maamulka ku dhex jira halis haddii ay timaado dhibtii hore u dhacday dhib la mid ah inay dhacdo ma jecli meesha meel ugu fiican ee Soomaaliya joogto ee aad nabad ku helaysaan ee aad wanaag ku helaysaan ee aad xasilooni ku helaysaan walaalayaalow taga walaalayaalow waa talo waa idin la taliyay walaalayaalow taga dhibkiina ma rabo wareerkiina ma rabo Soomaali isku baaba'aysaana ma rabo waxa weeye haddii carab xumaado oo carabku qallooc galo
wax walbaba waa qalloocanayaan waxaan ku soo aruurinayaa hadalkayga cid walbaba cidda ay tahay ayay tegaysaa walowba Soomaali la wada yahay waxa weeye cid walbaba cidda ay tahay bay tegaysaa waayo waa diiniyan waa sida la isula dhaldhashay iyo sida la isugu xigxigo aniga ma jecli qabiil iyo qurun inaan isticmaalo hase yeeshee wixii quraanka ku qoran oo Ilaahay uu ku dhigay ee Nabi Maxamed loogu soo dejiyay marnaba qof caqli leh kama leexanayo nooga baxa dhulkayaga gaalo waa la dirirnay Ingiriis 20 sano la dirirayay ka bax baan ku iri dhulka haddaada ka bixiso ma aha waxa weeye sugo adiga iyo 40 nin oo kula joogta oo jeegaanta ah aniga intaas ayaa kugu iri ragga kale ee yiri annagu banaanka ka taaganahayna waxa weeye qiimahooda iyo sharaftooda iyo garashadooda iyo aragtidooda Ilaahay kama qaado marka dadka kalena ha xushmeeyaan ayagana waayo iyaga fikradooda salaadiintoodu u soo jeedisay annagana salaadiintayada waxay soo jeedisay waa qaadanaynaa salaadiintayaduna waxay yiraahdeen wixii idinku soo duula iska celiya diyaar baana loo yahay in la iska keen celiyo Khaatumo iyo Puntlandina waxa weeye waa dad walaalo ah oo isla dhashay idinkana waad la socotaan cid celin karta oo kala reebi karta Puntland haddii la taabto Khaatumo waa joogtaa Khaatumo haddii la taabto Puntland waa joogtaa sidaa ku tashada dadka la jira oo annaga naga tirsana waxa idin sheegayaa dameer baqtiyaatiin haddaad halkaa ku dhimataan run cad baana idin sheegayaa xilalka la idin dhiibay iyo hunguriga yarkoo la idin siinayana ujeedada waxa weeye in dadkiina la idinku kiciyo dadkiina la idinku waxeeyo awr kicis baa la yiraahdaa waryaaya sharaftiin iyo karaamadiina ilaashada Ilaahay baa wuxuu siiyay dhexda dhuuqsada dadkiinana ka dhinac gala waa Axmed Nuur Maxamed ninka kula hadlaayay Muuse Biixiyow khaladaadka aad ku socoto qodbadaadii markaa aan dhageystay waxaan ku leeyahay dawladda Soomaaliyeed ku soo kortay ku soo barbaartay cilmiga oo dhan ku siisay ummadaada Soomaaliyeed soo raac dadka iyagana dhibaatada iyo wareerka ka dhaaf Soomaaliyeed ee maanta Ilaahay maanta adiga ku horgeeyay oo lagu leeyahay madaxweynaha tahay walowba anigu aana ku dhihi kareynin waayo dad baan dambi ka galaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa Axmed Nuur Maxamed ninka kula hadlaaya nabadgelyo